maareeyaha hay-adda wadooyinka Somaliland oo ay weheliyeen maayirka degmada Balugubadle iyo guddida gacanta ku haysa wadada Balugubadle ayaa maanta soo kormeeray dhamaystirka wajiga saddexaad ee caratuulka wadada isku xidha magaalooyinka Balugubadle iyo Hargeysa oo muddooyinkii ugu dambeeyay gacanta lagu hayay dhigista caratuulka wadadaasi oo dhan 14 kilomitir gaar ahaan inta u dhaxaysa magaalada Dish ilaa degmada Gumburaha Banka ee gobolka Hawd xaflad kooban oo lagu qabtay wadadaasi isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Balugubadle ayaa ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay injineerka guud ee wadadaasi gacanta ku haya injineer Khadar Maxamuud Gaxnuug waxaanu ka warbixiyay halka ay marayso dhismaha wadadaasi maanta waxaan joognaa gabagabadii 14 kilomitir ee magaalada Dish iyo Gumburaha u dhaxeeyay 13 kamid ah carakaawadi baa taala 1 kilomitir baa harsan 7 kilomitir waa la kala bixiyay oo qaraaci iyo gareedartu way u dhan tahay wax yar baan ugu haray insha Allah inta yarna waan dhameystiri doonaa waxa isaguna halkaasi ka hadlay Sheekh Mubaarak Muuse Faarax oo kamid ah guddida wadada Balugubadle waxaan u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha wadadaasi baabuurta ka hawlgalaysa way farabadan yihiin waxay isugu jiraan bulshada rayidka ah iyo dawladda ayay isugu jiraan ugu yaraan deegaanka baabuurta ka qayb gashay ee maalin walba ka qayb galaysay marka la isu celceliyo waxa ay gaadhayaan sida u soo kala noqonayaan sida kaltanka u sameynayaan ilaa 78 gaari ayay markaasi noqonayaan wadada waxa ay bilaabeen 12 bisha 14 kilomitir weeye 14 kilomitir waxa ka hadhay wax ka yar 2 kilomitir baa imika kaarsan hawshaasi waxa ay ku qabsoontay ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo inoo hirgeliyay iyo dawladda iyo bulshada u dhalatay deegaanka oo wax wada qabsaday oo isku tala galay wixii ay dawladda ka heli karaan iyo wixii aanu qabsan karno inaanu isku darno waana ugu tala galnay inaan saa ku dhamayno waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen maayirka degmada Balugubadle Cabdi Iimaan Jaamac iyo maareeyaha hay'adda wadooyinka Somaliland Cismaan Sheekh Cabdi Maxamed insha Allah ta'ala waxaan ku diyaarnay maareeye inaan wixii aan adduun hayna isla barbar taagno oo ilaa bilgodo baasha socoto waxa kale oo balaqaayna hadaan dadweynaha gobolka Hawd ku dhaqanahay inaan u diyaar garownay aad iyo aadna waan ku maadnaqayaa alxamdulillah waa noo sharaf weey shaqadii iyo taladii aynu ku bilownay markii hore alaamadka iyo 14 kilomitir inaynu maanta halka marano awalan waxaan doonayaa inaan tilmaamo anagu waxaan nahay hay'adda horumarinta wadooyinka oo u qaabilsan dawladda u qaabilsan runtii horumarinta wadooyinka tamartu waxay doonto ahaato arrinkan wuxuu ahaa arrin dhiirigelina bimacna kalima anagu gaadiidka qalabkan keenay kuma filayn qaybta aad ka qaateen baa imika ka culus oo ka weyn laakiin waxa ilaahay mahadiya inaanu dhiirigelin sameynay inaanu mataqaana in hogaaminay idinkuna aad aqbasheen gacmihii iswada caawiyaansheena ku cuslayn xoog iyo xoolaha iyo waxa la yiraahdaa aqoonta dadka ku jiraan maanta waxaanu dareemanaa aad iyo aad ugu faraxsanahay sida aad heeganka ugu tihiin iyo qaybta aad ka qaadateen dadweyne ahaan alxamdulillah madaxweynuhuna waa inoo diyaar ugu dhiirigeliyay iminkana wuu nagu dhiirigelinayaa qaybtiisana ama qaybta dawladda sareena way ka qaadanaysaa annaguna hay'ad ahaan diyaar baan nahay hariya habeen shaqaalaha iyaga iyo wax alla waxaan muruq iyo maskax bahayna waan isku geenaynaa bidmillahi ta'ala Maxamed Jiciir Axmed TV qaranka Somaliland magaalada Balugubadle